wardegdeg ah oo hadana soo gaaray komishanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen maalinta la qabanayo doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashooyinka ururada ee asxaabta ay ka qayb galayaan. haddaba war-saxaafadeeda ay soo saareen komishanka doorashooyinku ayaa nuxurkiisu waxa uu ahaa war-saxaafadeedkan oo lagu cayimay maalinta doorashooyinka la qabanayo ayaa waxa lagu yiri in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo doorashada tooska ee asxaabta qaranka la qabto 13 bisha November ee sanadkan aynu ku jirno ee 2024 in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ay kaliya ay ku tartamayaan murashaxiinta saddexda xisbi qaran ee UCID kulmiye iyo wadani. in doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamayaan saddexda xisbi qaran ee kulmiye iyo UCID iyo wadani iyo 10 urur siyaasadeed oo u soo gudbay ama gudida diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay ansixiyeen ururnimadooda. kordhaweyda ayaa warkan waxa uu saxiixan yahay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ee soo baxay. sidaa darteed Soomaaliland waxa ay dhabaha ay qaaday ama waxay cagta saartay u diyaar garowga doorashooyinka isku sidkan ee asxaabta qaranka ee saddex xisbi qaran iyo 10 urur siyaasadeed ka qayb gali doonaan iyo doorashada madaxweynaha kaliya ay ka qayb gali doonaan hogaamiyaasha ama murashaxiinta saddex xisbi qaran ee UCID iyo wadani iyo kulmiye. waxaana xilligan bilaabmay ololaha doorashooyinka oo si hoose ama joog hoose ku socda iyadoo oo had iyo jeer xilliyadan marka la soo gaaro siyaasiyiinta iyo ururada siyaasaddu ay u kala dheereeyaan dadka codbixiyaasha ay gobolada iyo degmooyinka urur kastaaba isagoo doonaya inuu kasbado dadweynaha ama dadka codbixiyaasha ah si uu uga soo baxo ama u guuleysto markii la gaaro xilliga doorashada.